inaga daawanayso waxay nagu qoranayaan lacabda hadday tahay markii koowaad na soo booqotaan na soo firiwgara muuqaalka noolay gareeya noo sheer gareeya la wadaaga asxaabtina dhammaanna muuqaalka gaadhsiiya cadowga jamhuuriyadda somalilan iyo meel kastuu joogo bal waxay doonayaan yara inaynu ka soo hadalno maxaabiistii ay puntland ay soo doyso oo hadda ka soo degay garoonka cigaal international airport diyaaradii sidee maxaabiistii somalilan ayaa dib waxaa loo sii saaray 11 maxaabiis oo laga dejin doono iyagana magaalada Garowe ya dawladda Puntland waxay si qurux badan oo miisaan leh oo muugle u soo sabootisay 15 maxaabiis ay Somaliland maanta ay u sii deysay Somaliland waxay si qurux badan oo maamuusa oo sharaf iyo cirdi iyo karaamo ay ku dheehan tahay u sii deysay 11 maxaabiis ee Puntland ay isweydaarsadeen garoonka cigaal international airport ya maxaabiistii Somaliland waxa ku soo dhaweeyay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland wasiiro ah waxa kale soo dhaweeyay boqor Cismaan boqor Buurmadow waayahay maxaabiista ay Somaliland 11 ya ay u sii deysay dawladda Puntland waxa ku jiray saraakiil aad u qiimo badan halka inaga saraakiisheen wali ay xidhayihiin sida Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka yogolka ay xidhayihiin oo wali alaanka xuriyadooda ay helin saraakiisha maanta la sii daayay waxay ahaayeen saraakiisha uu Faysal Cabdi Bootaan uu qacantiisa uu ku qabtay haddaba shacabka jamhuuriyadda Somaliland ya wax badan baa ka qarsoon oo dahgalaashiisa ka socda Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka yoolka iyo saraakiishii kale ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland maadaama la sii daayay saraakiishii dagaalka uu Faysal Cabdi Bootaan uu ku soo qabtay magaalada Laascaanood ay ku jiraan taliya aarsada waa la yaqaan waa ninka maanta u soo dhawaa Faysal Cabdi Bootaan ee u dhigmeeyay kan kale Cabdi Mudallib ya isna wuxuu u dhigmeeyay garka yoolka ninkii la oranayay sarkaalka ah waayahay Somaliland si qurux badan bay u sabootisay maxaabiistii Puntland waayahay Puntland maxaabiistii ay haysatay ya ay maanta ay soo deysay quruxdooda iyo bilicda ka muuqata malayn maysan waxay waliba ay Puntland si qurux badan ay ugu soo labistay maxaabiista halka ay Somaliland maxaabiistii ya Puntland dhammaan ay ugu sii wada labistay suurad gobonimadu waa u dhalasho reerkii yaraayay dhulbaantay ku gaajoonayay magaalada Laascaanood ee durxumadu iyo macluul darradu ay ku laysay magaalada Laascaanood way ogeyn sidii gunta ay u dhaqmeen iyo sidii maxaabiistii ay ula dhaqmeen way ogeyn darxumada iyo diifta ka muuqatay waynu arkaynay maxaabiista ay soo deysay dawladda Puntland quruxda iyo bilicda ka muuqata malayn maysan aad baa loo dhaqaaleeyay bilicda ka muuqata malayn maysan waliba sida lagu soo labisay si inaba caadi hayn weeyaan war gobonimadu waa u dhalasho gobonimo waxay taala guri majeerteen bay taala marka gobonimo la sheegayo guri majeerteen ayay taala waayo wayn arkayna majeerteen sidoo u dhaqmay iyo sidoo dhulbaanta u dhaqmay waynu arkayna waa kaafiye kala dheeri reerkii reer dhulbaanta ee ku gaajoonayay magaalada Laascaanood waxay ku xoqanayaan hartinimo war Puntland iyo Somaliland baa maxaabiista isweydaarsaday ma aha markii koobaad ay Puntland iyo Somaliland ay maxaabiis isweydaarsanayaan marar hore saasoo kale ay dhacday oo maxaabiis ay isweydaarsadeen reerkii reer dhulbaanta magaaladii Laascaanood iyagii baa ku baqtiya maxay maxaabiis waxsin iyagii baa gaajoonaya maxaabiista ee Somaliland ee ka soo degay garoonka cigaal international airport waxa soo dhaweyn u sameeyay boqor Cismaan boqor Buurmadow waayahay kollay waa ciidankeena qaranka jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ma kala ha qabiil iyo qolo laakiinse waa qaran ma oran karayno intaasa reer hebel ah oo intaasa hebel kala oo intaas waa beesha kale oo intaas waa beesha kale ma kala dhigi karno mana kala qaybin karno ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee naftooda u huray inay dalkooga iyo dadkoogaba ay u dagaalamaan inay u dhintaan waa heliyeeyo weeyaan waa geesiya qaran weeyaan waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay hadaba xukuumaduna markana ka shaqeyso soo deynta Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka yoolka iyo saraakiisha kale ee naga xidhan magaalada Laascaanood maadaama saraakiishii u dhigmeeyay Faysal Cabdi Bootaan ya laga sii daayay xabsiga waa in dhammaan maxaabiista xuquuqdooda ay helaan
dhulbaanta waxay taagin war Faysal Cabdi Bootaan annaga ilaaho naga furfuro mooyaane bilaada naga furfuri maayo waayo dhulbaanta Faysal Cabdi Bootaan waa ninka kaliya isku ilaalinaya waa ninka kaliya wax walba u suurta gelinaya ninka dhulbaanta way isku ilaaliya waanay haystaan mana rabaan dhulbaanta inay Faysal Cabdi Bootaan ay soo daayaan ma rabaan Faysal Cabdi Bootaan inay soo daayaan ma rabaan waxay rabaan Faysal Cabdi Bootaan inay haystaan bay rabaan waayo lama rabade Faysal Cabdi Bootaan dhulbaanta uu isku ilaalinaya waayo dhulbaanta wuxuu isleeyahay mar kale dagaal dhici doona war aarsada waynu naqaana aarsada waynu garanaynaa ninkaas qiimo ugu fadhiyay dawladda Puntland inuu nin ahaa halgamaaha waliba ay qacanta ay ku soo dhigeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaaminayay Faysal Cabdi Bootaan rag uu soo qabsaday Faysal Cabdi Bootaan ya maanta xuriyadoodu ay heleen Faysal Cabdi Bootaan maanta isagu waa maxbuus Faysal Cabdi Bootaan inaga wii inugu weeyahay meel madaxa ka sareysan saaran karna oo haba yaraata ma jirto waa sarkaalkeena maanta ugu qiimaha badan Faysal Cabdi Bootaan nin maanta u dhigma Soomaaliland ma joogo Faysal Cabdi Bootaan marka runta la isku sheegayo Faysal Cabdi Bootaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa inuu isaguna xuriyadiisa u helaa uu dadkiisii iyo eheladiisii iyo qaraabadiisiiba iyo shacabkiisii Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dib u la midooba Faysal Cabdi Bootaan xukuumaddu ha ka shaqeyso maadaama danay iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cire heshiis ay ku wada galeen in maxaabiista ay kala haystaan isku sii daayaan ganacsigana ay furaan Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka iyo golka iyo saraakiisha kale ay naga xidhan magaalada Laascaanood sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddana xukuumadda ay ka howlgelin way ku fashilantay saraakiisha ay sii deysay maadaama saraakiisha ay xukuumadda ay sii deysay ay inagu ay ku bedelan lahayn Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka iyo golka iyo saraakiisha kale ay naga xidhan bal waxaan idin hayaa bal sida maxaabiista lagu soo dhaweeyay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa iyo sida Puntland lagu soo dhaweeyay maxaabiistoodii bal in yar muuqaalkaas boqor Cismaan Maxamuud Buur Madow iyo Suldaan Ayaanle oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa maxaabiistaasi la sii daayay dhanka Garowe u raacay oo ku wareejinaya maamulka Puntland wadi ka arkaya waa maxaabiistii Soomaaliland oo si qurux badan lagu soo dhaweeyay garoonka Cigaal International Airport waa 15 maxaabiisa quruxda iyo bilicda ka muuqatay iyo sida ay dawladda Puntland ugu soo labistay waynu arkaynaa waayahay maxaabiistan kala arkaysaan waa maxaabiista Puntland ee 12 maxbuus ee maanta loo sii daayay iyagana wadi ka arkaya bilicda iyo shaxshaxda ka muuqata wadi ka arkaya Soomaaliland waxay ugu sii labistay sidii caadada ahayd suurarbay Soomaaliland ugu sii labistay gob tu sidaas u dhaqanta guntuna siday u dhaqantay dhulbaanta sidoo u dhaqmay waynu arkaynay maxaabiista ay dhulbaanta ay soo daayeen indhaheena waynagii ku aragnay inay gaajo laysay inay durxumo laysay inay macluul darro ugu dhimanayeen magaalada Laascaanood inay qaarkood ay ahaayeen balalaarto waynu arkaynay waynu arkaynay indhaheena shana ayaynu ku arkaynay war maxaabiistaas way wacantahay in la isweydaarsado oo dadkani ay nabada helaan oo jidku uu furmo umadu waa walaalo waa la isku dul dhamaaday waa la isku dul dhintay war dagaal faa'iido ma laha waynaga arkaynaa in maxaabiista la sii kala deysto waa wax aad iyo aad u wacan waynu soo dhaweynaa annaga waxa ugu muhiimsan oo noo qiimo badan Faysal Cabdi Bootaan iyo gorka iyo golka iyo saraakiisha kale ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maxaabiista ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhamaantood la soo wada daayay maadaama saraakiisha iyo maxaabiistii kaleba la sii daayay Faysal Cabdi Bootaan rag uu soo qabtay maanta waa kuwa layda cabaya Faysal Cabdi Bootaan maanta waa maxbuus waa la haystaa xukuumaddu maxay ka damacday Faysal Cabdi Bootaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay ka damacday Faysal Cabdi Bootaan Faysal Cabdi Bootaan maxaa laga damcay Faysal Cabdi Bootaan waxa weeyaan waa inay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka howlgashaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh war hadday tahay markii koowaad channelka YouTube-keena soo booqataan subscribe nagu saaci maamada muuqaalka noo like noo share gareeya la wadaaga asxaabtina inta muuqaal xiga ku kulmi doono waa walaalkana Yaan Cabdi idin la sidaayay fi amaanillah.